safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay waddanka Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in maalmihii ugu dambeeyay ay waday dadaalo lagu sii deynayo ganacsato Soomaaliyeed oo 16 bishan lagu xidhxidhay waddanka Turkiga. waxa kaloo la sheegay in albaabada loo laabay xarumihii ganacsi ay ganacsatadaasi lahaayeen. haddaba maxay yihiin sababaha loo xidhay ganacsatadaasi Soomaaliyeed, maxayse yihiin dadaalada ay samaysay safaaraddu? waxaa si toos ah khadka ugu jiro oo aan wareysanayna danjiraha Soomaaliya ee waddanka Turkiga Ambassador Jaamac Aydiid oo aanu doonayno inaan wax ka weydiino umuurahaasi. mudane safiir soo dhow ganacsatada Soomaaliyeed ee la xidhxidhay ee la sheegay in goobahoodii ganacsiga albaabada loo laabay, maxay yihiin dambiyada ay galeen oo loo haysto? nuuradeen waa soo dhawaay marka hore 16 bisha maalintii khamiista ahayd ayaan waxaanu ka warhelnay olole lagu ururinayo dadka ajnabiga ah gaar ahaan magaalada Ankara ganacsigu uga furan yahay. Soomaalida kaliya kuma koobnayn, baryahan oo dhanna sidii waddanka Afghanistan isbedelku uga dhacay oo qaxooti badan uga soo faruurmay oo dawladaha reer galbeedku qaarkood soo daadgureynayeen dad badan. dalkan Turkiga saameyn aad u weyn bay ku yeelatay mucaarad iyo muxaafidba. qaxootiga aad baa looga hadlayay, qaar qaxootiga diidan waa jiraan oo waliba xoog leh oo siyaasadda ka mid ah. saameyntaasaan anagu u aanaynaa in ay horta sababtay oo waxaan kicisay. baryahan oo dhan waxaa socday taftiish ama baadhis dhinacyo badan taabanaysa oo ajnabiga lagu beegsanayay. dadka ganacsatada anagu inta Soomaalida aanu ka warhaynay, laakiin dad badan oo kale oo Iiraaniyiin iyo Afghaanistaaniyiin iyo Suuriyiin iyo Ethiopian iyo isugu jira. magaalada Istanbul wali lama gaarin, Ankara ay ku koobnayd. annaga waxaana laga xidhay 9 qof. dad kale oo la xidhay waa jireen oo dhowr qof, laakiin waa la sii daayay. dadkaasi 2 dumar iyo 7 rag weeye. khamiistii baa la xidhay, maantana waa la soo daayay. anagu maalintii koowaadba waa la hawlgalay. qunsulku waa tegay meesha lagu xidhay isla khamiistiiba, isaga iyo wafdi kale uu hogaaminayo safaaradda iyo bulshada Soomaaliyeed halkan deganba ka socota, gaar ahaan ganacsatada. waatay ambassador muddo 5 maalmood bay xidhnaayeen ganacsatada Soomaaliyeed say sheegaysaan. waxyaabaha la qabateen ee aad shaqo ahayd qabateen maxaad nooga sheegi kartaa? والله 6 habeen bay xidhnaayeen iyo 5 maalmood waa run. dadka horta maalintii horeba wasaaradda arrimaha dibadda waa gaarsiinay cabashadayada. waxaanu kaloo u qabanay qareen safaaradda la shaqeeya, iyaga laftigoodu qareenna waa qabsadeen. immigrationka dhowr jeer waa tagnay, halka lagu xidhay ilaa dhowr jeer waa tagnay. intaasoo shir baa safaaradda ku qabanay sidii arrintan loola tacaali lahaa. asalkuna waxa weeye horta dadkan maxaa lagu haystaa markaad ogaatid baad ka falgeli kartaa. dadkan iyo dadka kale wali hadda aan la gaadhin ajaanibta ah, waxa ugu muhiimsan ee lagu haystaa waxa weeye sharciga ay ku furteen ganacsiga ayaa wax ka khaldan yihiin. anagu markaa waxaan ku doodanay dee sharci ganacsi wax ka khaldan in la xidho qofku ma mutaysto ama la tuquntuqeeyo. doodayadu horta halkaasay u badnayd. sharciga anagu maanaan ka hor imanayn. sharcigu waa sharci qoran oo qof dalxiis waddankan ku yimi ama arday ka ah ganacsigana kama furan karo, ganacsi furanna kama shaqayn karo. marka safaarad ahaan adigu kama hor iman kartid sharci dalkan u yaala, mana oran kartid ha la ii jabiyo. laakiin waxaanu ku doodanay qaabka dadkan loola dhaqmayo. dadkan waxay ahaayeen dad hanti kula dalka ganacsi uga furnaa, qaarkood caruurihii u degan yihiin, guryo ku leh ayaga hanti u leeyihiin. waxaanu ka cabanaynaa anagu qaabka loola dhaqmayo. marka dadka annaga ku filayn. maalintii hore koowaad waxaan ku nidhi annaga damiinanana. waatay ambassador miyay caddaatay markaa dadkaasi inay yihiin dad markii hore waddankaa ku galay hab dalxiis oo kale ah ama fiisihii dalxiiska ahaa, markii dambena ganacsi iska furtay, oo taasi miyay ku caddahay ganacsatada Soomaaliyeed? taas waa dee iqaamaddoodayba ku qoran tahay. kaadhkan iqaamadee dalka lagu joogo
ama waxaa ku qoran arday, ama waxaa ku qoran ganacsi, ama waxaa ku qoran diblomaasi, ama waxaa ku qoran shaqo inuu qaban karo, ama waxaa ku qoran caafimaad inuu ku joogo oo istaalkii extension iqaamadeed u sameeyey maadaama xanuunkiisu waqti qaadanayo. intaa qof walba kiisu wuu og yahay, taas horta muran kama taagna. waxa weeye digniinana markii la yidhaahdo digniino ma siisan, waa sayna bayna yidhaahdeen dawladdu. marka dadka Soomaaliyeed iyaguna de waa is og yihiin oo taa maba inkirsanaba in ay ka dhiman tahay. dadkan waxaa laga rabaa oo fursad la siiyey marka ay ganacsiga furtaan isagoo dalxiisa inuu bedelo oo kaadh ganacsi u bedesho. marka cidina ma qabsanayso. marka Soomaaliya kaadhka ganacsiga haystaa jira oo loo yimi oo kaadhkii tusay oo laga tegey. waa tahay mudane ambassador waxaa la sheegayaa in dib loo soo celinayo dadkaasi oo lasoo tarxiilayo, warkaasi ma jira? wallaahi arrintaa weeye arrinta annaga hadalka walwalka nagu haysta. galabtaanu ka war hellay. annagu waxaanu doonaynay dacwadaanu ku jirnay inayn halkaa gaadhin. mar walba waxaanu looyarada iyo annaguba ku doodanay war dadkan fursad aan siino si ay kaadhkii shaqada u samaystaan. sababtoo dadkani dad hadda tegi kara ma aha. marka dee bini aadamnimada laga ego xuquuqda bini aadamka ayaa mar walba horta dee adduunka waad ogtahay xuquuqda bini aadamku meeshay gaarhsan. looyarkayagu wuxuu ku doodayaa ama qareenkayagu war dadkani carruurtii baa u joogta, guryay ku leeyihiin, bangiyaa u furan, ammaanooyin bay hayaan. waa jiraa sharcigu, waa run, kama hor imanano. laakiin dadkan waxyaalo kalaa la xidhiidha oo 5 sannadood 6 sannadood bay waddankan maal gashanayeen. marka ma aha qof maanta iska yimi. sida awgeed looyarkayagu dee markii dambe waxaa muuqatay in lagaga adkaaday oo loo soo qoray warqaddii. maanta markii ay soo baxeen waxay noo sheegeen in warqad laga saxeexay oo la yidhi 30 maalmood kaga baxa dalka. arrintaasi marka annaga runtii dee waxay nagu tahay in keiskiina lagaga adkaaday bay u muuqataa. waa tahay ambassador, waxaa la sheegay in adigoo ah safiirka Soomaaliya dalkaasi Turkiga aad saxeexday in dadkan dib loo soo tarxiilo. maxaad sidaas u yeeshay haddii aad og tahay in dadkani ay dad meesha maal gashaday yihiin, ubadkoodii ay joogaan, dabcan aad marxaladaha dee Soomaaliyana ka warhaysid, maxaa aduu saxeexa u samaysay? nuuraddiinow dee horta intaadan igu xukumin adigu haddaad safiir tahay ma saxeexi lahayd warqad dadka Soomaaliyeed ganacsatada lagu tarxiilayo? adaan ku weydiiyey su-aasha. miyuu jira inaad saxeexday? aynu su-aal ka dhigno. mana saxeexin. waxaanuba ka soo horjeednay oonu ka dagaalamanay in la tarxiilaanuba ka dagaalamanay. haddii aanu warqadda noocaasa saxeexano maxaanu ugu doodanaa oo aan u gaadhsiinay heer aan nidha anaa damiinanaya ka safiir ahaan. haddii aad hadhow saartaana anaa keenaya meesha lagu saarayo. haddii aanu kayska ku guulaysanana annagaad ka damiina inay sharcigii samaysanayaan, annagaa ka kaalmaynana. qaraamaadka lagu rabo ama ganaaxa laga rabo waa bixinana. ilaa halkaasaanu isla gaadhnay. waa tahay laakiin marka dambe waxaa muuqata galabta warkaa naxdinta leh aanu galabta helnay. runtii kayskaa 9 qof ina lagaga adkaaday. keliya hadda waxaanu badbaadinanaa 9 qof hadday baxaan ma laga gelinayaa xanibaad inayn waddanka soo geli karin sanad ama 2 ama taasaanu horta hadda ka dagaalamanaa oo aan leenahay dadkani maadaama hanti ay dadka ku leeyihiin u ogolaada markiiba inay soo galaan oo bedeshaan kaadhkooda. waa tahay safiir, markaa ma waxaad leedahay warkaas ah inaan anigu warqad saxeexay dadka lagu tarxiilay waxba kama jiraan? warkaas waxba kama jiraan, si maba jiri karo warkaas. waayay waxaa jira dad dhaliilsan waxqabadkiina ka safaarad ahaan iyo la shaqaynta dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Turkiga. dhaliishaas sidaad u aragtaa safir? wallaahi nuuraddiin horta qof la dhaliila haddaad aragtid wax qof wax qabanaya waa qof intuu wax qabtay wax ka dhiman yihiin. laakiin qofaan marka horeba wax qaban dee horta cidiba ma dhaliisho. taasi waa wax iska caadiya. dhaliishan annagu diyaar baan u nahay, laakiin dhaliishu waa inay ku qotontaa dee waxyaalo xaqaa'iqa. matalan hadda kayskan oo kale, kaysaska kale iska badaa. kayskan annagaa la bilownay, annaga iyo ganacsatada kale iyo jaaliyadda qaybo ka mid a. dadkana dhaliilayaa waa dad aan warbahaynba. waxaa la yidhi xaajo nimaana weyn baa indhaha ka ridaa. qof gurigiisa iska jooga oo meel wax marayaan aan jirin baa iska hadlaya intuu teleefon qabsado, cod duubaya ama Facebook wax ku qoraya. qofkaasi waxaa laga yaabaa inuu Turkiga joogo, ma awoodayo oo ma haleelayo inuu safaaraddii soo waco oo annagana soo waco yidhaahda hawshan ma gasheen, wax ma ka qabateen.
marka de horta dhaliilahaas waxaan u malaynayaa ma aha dhaliilo booskoodii laakiin guud ahaan anagu dhaliisha waa aqbalanaa. dhaliishu waxbay toosisaa hadday toosan tahay, waa tahay dhaliishu waxbay toosisaa hadday wax dhisaso oo ay dee wadadeedii maraso. laakiin social mediahana de qof waliba afka iska furanayo, ma u malaynaya inay hadda dhaliil wax saameynaya yeelanayso. waa tahay safir, soomaalidii ugu badnayd baa waddankaasi jooga oo ganacsiyo ku leh oo waxbarasho u jooga oo degenaansho u jooga. marka soo ma aha in waajibkiina si fiican aad u gudataan oo aad ogaataan in ay hawl fara badan idin saaran tahay, maadaama dadkii ugu tirada badnaa Soomaaliyeed ay dalkaasi sanadihii ugu dambeeyay gaadhayeen oo joogaan? wallaahi horta waa run arrintaas ma aanan mooganin. wadda dadka badan baa jooga, weliba dadka waxaa u badan dadka caafimaadka u yimaado aada u dhibaataysan. waxaa yimid dad caa'ilaad ah oo caruuro jiidaya oo dumarkii keliya ah oo raggii ka tageen oo ka shaqad noqdeen meelihii ay ka yimaadeen kasoo shaqaynayaan, ama qurba ha noqdeen ama Soomaaliya ha noqdeen. dad aad u badan oo dayacan baa jooga. arday baa joogta la iskaga soo daadiyey, waalidkood soo diray oo qaarkood waxbarashadii ka dhaceen oo balwad iyo suuqa iyo waxaa tuban yihiin. qaar tahriib u yimaada oo dhibaato badani badaha ka qabsato. horta dadka Soomaalida dhibaatada meesha hadda ka haysta aad bay u badan tahay. annagu wixii karaankayaga ah waxba ma hakrano, annagu saanu is aaminsannahay. waa laga yaabaa dee waxyaala karaankayaga ka baxsan inay jiraan. tusaale ahaan dadka caafimaadka u yimaada lacagtii baa ka go-asa, dee lacagna uma hayno annagu aanu kaga bixino. dowladdan Turkigana sida ay dadka u caawiso caafimaadku waddan lasoo maray leedahay oo wasaaraddeena caafimaadkaa soo dirta. waxyaalaha dee awoodayada ka baxsan oo qof tahriibay oo annagu aananba ogeyn oo meel ku dhintay ama de waxaas waxaan u malaynayaa waayay marka kuwaa laga tago waxyaabaha mooyaane. laakiin annagu waxaanu aaminsannahay safaarad ahaan hadda adeegyada aanu bixino online baanu ka dhignay. qofka gurigiisaan ugu geynaa, wasaaradda annaga uga soo tasdiiqina. waa yartahay safaarad saa u samaysaa. waayay mudane ambassadore, waxaa la sheegayaa in arday fara badan oo Soomaaliyeed oo waxbarasho u aaday waddankaasi Turkiga ay ku hungoobeen kadib markii jaamacadaha Turkigu ama Turkidu ay sheegeen inaanay aqoonsanayn qaar ka mid ah jaamacadaha Soomaaliya ka jira. warkaasi ma jiraa? maxaad iyada ka qabateen haddii jiro? warkaasi markaan imi wuu jiray. jaamacadaha waddankeena ka furan waxay aqoonsanaayeen 7 jaamacadood keliya. laakiin alxamdulillah waa ku guulaysanay annaga iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waa ku guulaysanay arrintaa. jaamacadaha hadda 40 ka badan oo Soomaaliya ka furan baa dalka Turkigu aqoonsan yahay. ardaydiina mastertooda iyo PhD-goodaba way ku dhigtaan. waxyaalaha ugu badan oo anigu inta halkan joogay aan ku guulaystay wax ka qabtay arday boqolaal ah 300 gaadhayo oo halkan ku dhibaataysnaa oo maalin walba ii iman jiray. waxaan aaminsanahay waxyaalaha ugu fiican aan dalka ka qabtay inay taa tahay. habeen iyo maalinna kama hadhsan. waa ogyihiin wasaaradda waxbarashada Soomaaliya dagaalkii ana dhex maray 3 wasiir soo maray, wasaaradaha dowlad goboleedyada dagaalka aad iyo aad baan ugu guulaysanay. iminkana dhowr iyo 40 safaaradood oo Soomaaliya ah oo deegaan walba jooga ka furan ayaa master lagu dhigtaa, PhD-na lagu dhigtaa. waxaan aaminsanahay waxyaalaha ugu badan aan Turkiga ka qabtay inay ka mid tahay. waa tahay ugu dambeyntii mudane ambassadore, maxaad u soo jeedinaysaa bar dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi Turkiga ee aad mas-uulka u tahay? monodrino horta arrinta maanta furani waa arrintaa. iminka waxaa noo ballansan ganacsatada Istanbul iyo ganacsatada Ankaraba waa noo ballansan yihiin. ganacsiya hadda waxaa lagu soo socdaa 7 abaa u diiwaan gashan dowladda. waana ogyihiin ganacsatadu, waana u sii dignay sababtoo kan hadda dhacay waa inaan cashar ka baranaa. horena waa ula hadli jirnay dadka oo waxaan oran jirnay war waddankani waa waddan qaanuun ku dhisan. waddan maaha sida wadamada kale aynu ka ganacsano iska furan oo qofku sida dukaanu islii ka furanayo oo ninka booliisku markuu soo hor istaago 500 oo shilin uu siinaya maaha. waa waddan nidaam leh, qaanuun leh, zoonku ku jira, waa la wada ilaashanayaa. waa suuq xor ah, waa suuq qof walba tartan dukaanka kugu dhegan ee sharcigiyadii oo dhan dhamaystay baa kula tartamaya. dowladdu ma ogolaanayso 2 dukaan oo midna sharciyadii oo dhan fuliyay midna sharciyadii wax ka dhiman yihiin inay tartamaan, ma ogolaanayso. dadka horena waa ugu sheegnay,
iminkana waa u sheeganaa, shaashadiina universal waa u marinanaa, shirar badanna waa u qabananaa, horena waa ugu qabanay. walaalayaalow iska saxa, yaan laydinka helin waddo la idiin soo maro. dalkan waa dad ballaadhan, waa dad horumarsan, wax waliba waa qaanuun. weliba iminka wax walba waa la computer baa la geliyay, digital baa laga dhigay, qofka daqiiqad baa xogtiisoo dhan lagu soo helaya. marka arrintaasi waa arrinta runtii miidiyihiinana laftigooda inaad ka qayb qaadataan loo baahan yahay. dadkan ganacsatada ah ee ama baasaboorro ajnabi ha wateen, iminka 9 qof, dadka qaar baa baasaboorro kanadiyaana wata, qaar baa baasaboorro ingiriisa, soomaali ma wada wataan. laakiin annagu soomaali bay noo wada ahaayeen, maadaama waddankeenu 2 dhalasho uu ogolaan karo. waxaanu ku doodanay annaga isagoo kanadiyaan wata ayuu soomaali noo yahay, waana waddankaygu waa ogol yahay. sidaasaanu markaa wasaaradda arrimaha dibadda si rasmiya magacyadooda ugu gudbinay oo aan ugu doodnay oo aan nidhi dadkan sida loola dhaqmay concern walwal baan ka qabnaa. way tahay in sharciga la gudbiyo, sharci lagama horeyman karo, waa run. safaaradda weliba sharci kama horeyn karto waddankan u yaala. laakiin arrintaa aada su-aasha hadda aada ugu dambaysisay waa meesha ay u go-aso. waxaynu u baahannahay dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo ganacsata ahaanba inaynu inagu dib isugu noqonno, bal xisaabtanno intaan daadku ina soo gaadhin oo albaabada inooga soo gelin. waa tahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay. kaasina wuxuu ahaa safiirka waddanka ee turkiga u fadhiya soomaaliya, ambasador jamaal caydiid, oo aan ka wareysanayey ambasador jaamac caydiid aan idhaahdo, aan ka wareysanayey arrimaha ku saabsan ganacsato soomaaliyeed oo 16 bishan lagu xidhxidhay ee waddankaasi turkiga iyo guud ahaanba shaqooyinka safaaradda soomaaliya ee turkigu ay u qabato bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi. aada iyo aad baad u mahadsan tahay danjire.